السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن أخيارتا هودا نقل سocodto kusoo dhawaada barta warbaahinta ee ururka xoojinta qaranimada Soomaaliland. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe sar kambalelka furo si aad ula socoto markaas xogaha aan halkan ku baahino. Kusoo dhawaada qayb kale oo kamid ah barnaamijyadeena taxanaha ah ee ku saabsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa sida aad la socotaan 2012 waxa dalka Ingiriiska ka bilaabmay wada hadallo Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay waxaana xilligaasi markii wada hadalladaasi ay bilaabmeen maamulka Soomaaliya uu ka baxay marxaladii ku meel gaarka ahayd geedi socodka wada hadalladaasi waxay mareen marxalado kala duwan kulamo kala duwan ayaa dhacay kii u dambeeyay wax lagu qabtay dalka Djibouti haddaba wada hadalladaasi ma u socdaan si sax ah oo markaasi ay labada dhinacba ku heli karaan xuquuqdooda maxaa laga fili karaa natiijadooda maxaa ka qaldan maxaase ilaa hadda saxan arrimahaasi waxaanu ku falanqayn doonaa barnaamijkan oo uu dabcan su'aalaha iyo kuwa kaleba aanu ku weydiin doono aqoon-yahan Cali Sheekh oo isagu ah aqoon-yahan u dhashay Soomaaliland khabiirna ku ah arrimaha nabadeynta iyo wada hadallada haddaba Cali Sheekh ayaa inooga warramaya ugu horreyn sida uu aqoon-yahan ahaan u arko wada hadalladaasi khaladaadka ku jira iyo waxa laga fili karo qaybta dambe ee warbixintiisana waxa uu aqoon-yahanku ku sharaxayaa qodobo muhiim u ah in lagu daro ama ay gundhig u noqdaan wada hadallada labada dhinac. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انت كدب وحندوني إن هلكن كشيغو هذا اليرو كوبان أو كوسابسن وده هذا اللذ Somaliland يسوماليا إن كدب xornimadii ay la soo noqotay Somaliland xukuumadihii kala dambeeyay ee soo xukumay ee ku horeeyay madaxweyne Siraayo gidigood arrinta wada hadalka iyo wada xaajoodka Soomaaliya meel bay ka wada joogeen oo ah inay aaminsanaayeen inaan wax wada hadala lala yeelan Soomaaliya sababtoo tahay lama garan karo ama ma cadda cidda wada hadal lala yeelan karo iyo wada xaajoodtoona waayo 100 meelood iyo 100 ardaabay u kala fadhiyeen way qasnaayeen ilaa imikadana waxaan rumaysnahay inay sidii u qasan yihiin dawladdii madaxweyne Siraayo 2012 ayaa wax isbedelkaas oo aan anigu rumaysnahay inaan xageena aanu ka iman ee ay ahayd talo iyo fariin ay noo keeneen ama codsi naga yimid xagga bulshada international community-ga international community-gu waxay yaqiinsadeen Soomaaliya wadankii la oran jiray Somali Republic inaanu cagadhigayn ama aanu xasilayn intay Somaliland ka maqantay geedi socodkii Soomaaliya loo sameeyay baa wax la soo galay Somaliland waa inay si uun ugu lug yeelataa xasilinta wadankii Soomaaliya loo oran jiray waxay ku taliyeen oo inagu dirqiyeen inaynu nimanka wada hadalno wax meel isla dhigno waxay nagu yiraahdeen macaamilka Somaliland ay la macaamilayso bulshada caalamka ama international community ayaa ku xiran in aad wada hadal la furtaan iyagoo ujeedadoodu ahayd in bal meesha xal loo waayay Somaliland loo adeegsado xal u hesho tiimeenu ka marnaan garan weyne maadaama aynu doonayno caalamka inaynu la macaamilno diidma qayaxan in la hordhigo way noqon weyday waxa ku hor yaala ma wada hadasheen horta dowladdii Siraayo si wanaagsan bay yeeshay
waxay mandate ka doonatay ama ogolaasho ay ka doonatay shacabkeedii bay kula soo noqotay qolihii baarlamanka ayay weydiisatay waa la naaqushay waa laga dooday way soo bandhigtay sababtay nagu kalifaysay iminka wadahadalladan hore loo furin la furo qolihii baarlamanku way isku raaceen oo waxay yidhahdeen go ahead aynu la hadalno sanadkii 2012 ayaa waxaa shir loogu qabtay wadankii Soomaaliya iyo Somaliland shir ay ka soo qayb galeen labadooduba magaalada London dawlado badan baa ka soo qayb galay oo daneeya danaha Soomaaliya danaha gobolka iyo labadii dawladood ee khuseynaysay Somaliland iyo Soomaaliya qodobo badan baa meesha ka soo baxay community ugu dambeeyay meesha laga soo saaray waxa si muhiim ka ah qodobka lixaad oo sheegayo si qayaxan u sheegaya in bulshada caalamku ama international community ay soo dhaweynayaan ama ay aqoonsan yihiin ama ay fariin u dirayaan labada Soomaaliya iyo Somaliland in ay wada hadallada iyo mustaqbalka aayahooda ay ka tashadaan waxa la Somaliland iyo dawladda ku meel gaarka ah oo markaa Sheekh Shariif hogaaminayay inay mustaqbalkooda wuxuu noqonayo ay ka wada hadlaan dawladda ku meel gaarka iyo waliba kuwa kale ka dambeeya halka arrin markay mareysay waxa shirkii afduubay dawladda la yiraahdo Turkiga oo aad moodo ama isku dhigtayba inay Soomaaliya iyo Somaliland labadaba ay dadka kale ama caalamka kale ka xigto say doontaa uga jeedo maslaxad gaar ah iyadoo ay eeganaysay waxay doontaa uga jeedo waxay iyadu markaa ay qiistay maadaama ay iyadu dal muslimiin tahay inay Yurubta kale ama international community kale uga dhowdahay Soomaaliya iyo Somaliland shirar badan baa halka ka dhacay qaar baa ka dhacay maxay haydeen Abu Dhabi way soo socoto ilaa Djibouti bay shirar ka dhaceen waxa soo shir ah wax ka soo baxay ama wax natiijo oo faa'iido leh oo ka soo baxay Somaliland u faa'iidii ma jirin kolba wax lagu meeraystaba oo la yiraahdo qadiyada muhiimka ah ee ay ka tashigu bal horta dib inoogu dhigo waxyaabo kale aan ku meeraysano kolba wax la cagajiidaba waxay muhiimadii iyo khalaasku kalaamku noqonayaa gunaanadkii wuxuu noqonayaa in shirarkaasi wax faa'iido ah aan Somaliland ka faa'iidin halka markay marayso waxa la soo gaaray dawladdii farmaajo markay qabsatay madaxtooyada wiilka Soomaaliya iyadu arrimihii hore wax ka duwan oo ka bahan taaq badan ay la timid iyadoo shirarka hore iyo wada hadalkaas kulkiisa horeba oo buuq marka qaarkood la geliyo oo lagu marmo yaa ka qayb galay si looga qayb galay sax maaha iyo qalad maaha dhibaato iyo moral aan markii hore inoo taagan kolka horeba inagu riday ayaa dawladdii farmaajo iyadu wixii way ka soo daba martayo wax hantaaq iyo dhibaato ka weyn in kuwii hore aynu kala kulmeen bay la timid 3 sanadood soomay hadal qaadin wada hadal iyo Somaliland la shiro inta waxay ku mashquulsanayd mijaxaabin iyo qalalaase ay Somaliland ka dhaxwatay oo ay u adeegsanaysay lacag ay dibadaha ka soo qaadatay qadarka ugu horeysay oo kolba dhinac ay naga soo weeraraysay oo inta iyadoo adeegsanaysa qaar inaga mida nasiib daro guniya imaad goysay baa la dambarkay ku jiray qaar inaga mida oo aan la dafiri karin ayay soo adeegsadeen lacag baa la soo siiyay social media lacag lagu bixiyay
waari qirteen siyaasiyiintoodii waxaa ka mid ah ninkii berigii dhaweytay hudheelkiisa la qarxiyey maxaa ahayd iliid ku teel lahaa 40 milyan oo doolar bay sanad qura ku bixisay dowladda farmaajo qalalaasaha iyo mijaaxaabinta Somaliland waxa qarsoonna maaha inta cidee loo gacan haadiyey ee meesha tagtay ee la meeleeyay ee si wanaagsan loo suuriyay iyadoo oo lacagtaasi iyo kharashka lagu bixinayo hantaarda Somaliland ay dadkii xamar joogay ama Soomaaliya inteeda kala joogay ay u baahan yihiin inay ka mudnaayeen sida ay tahay dowladaha caalamka iyo international community in badan baa loo sheegay oo iska dhiga tireen waxa iyaga laftoodu ka ahayd mooyaan inay ka garaadara ahayd iyo inay ula jeedaan iyaga laftoodu su'aali ka imanayso nimanka waxaas oo dhan qabanaya ee waliba heshiisyadii intaas oo dhan la soo galay haba yaraatee kuwii intii wixii lagu heshiiyey dafirsan ee diidan waxay ay su'aal uga weydiin waayeen waxay san ku dhaqmayaan ida lafteeda su'aal baa ka taagan haddii aan example yar ka bixiyo heshiisyada mid ka mid ahaa oo ahaa maamulka hawada sare ee wadankii la oran jiray Somali Republic ee markii hore headquarterkiisu ahaa Nairobi Soomaalida waxay geed sare iyo geed hooseba u fuuleen in maktabka la soo celiyo heshiiskuna wuxuu ahaa oo shirkii Turkiga kamid ahaa mid kamid lagu heshiiyey in maamulka hawada la soo wareejiyo Hargeysa la keeno Hargeysa la wada maamulo niman khiyaame iyo siyaasad wata bay haayeen sheekadii bay balkii la galeen waxay inaga heleen inaynu u seexno in bal marka ugu horeysa wadankii hawada maamulkeeda dibadda laga soo wareejiyo wadanka la dhex keeno wadankii la dhex keenayna wuxuu noqday xamar heshiiskii qodobka ahaa in Hargeysa la keeno waa la iska agmaray sidii iyagoo u dhaqmaya sidii qolada maafiyada ay afduub xoog leh ku maroojisteen arrinta dowladii caalamka ee markhaatiga ka ahaa inoo garnaqi lahaayee ina dhex joogayna waxba kamay odhan dee war waxani waxay ku heshiiseen ma aha arrin halkaasay maraysa kolkaa maadaama ay halkaa marayso oo ay 9 sannadood ay wada hadalladaasi socdeen dib inaynu sii eeganaa waa nacasnimo iyo liidnimo wax halkaa inoogu haray ma jirto marka waxa maanta la jooga aan ku talinayaa xukuumadda Somaliland iyo haday shacabka tahay iyo haday cid alla cid kale danaysa tahay baan ku talinayaa in la bedelo qaabkii hore ee loola dhaqmay ama wada hadallada loola dhaqmay qolada international community gana waxaan u wargelinaynaa hadalkii iyo wada hadalladii Somaliland qodobada waxa ugu horeynaya qodobadaas oo iyada lugteeda la wargelinayo iyadoo Ingiriisi iyo afkooda ay fahmayaan ku qoran qolada international community-ga maadaama hadalladii halkaa marayso oo kii ugu dambeeyay waxa kii Djibouti 2020 ee wixii ay heshiis halkaa ka gaadheen ee ahaa in 45 cishana ay madaxdu isku timaado 15 cishana ay gudiyada farsamada isku yimaadaan iyo kuwii ka horeeyay hawadu ka mid ahayd in waxaas oo dhan ay nimankii inagu balfureen oo balkii ka baxeen oo heshiiskii ka baxeen inaan nimankaasi intaysan yihiin aan la sii eegan karin waxaan markaas u jeedinayaa kolka ugu horeysa in wada hadallada hadii la doonayo in la bilaabo ama dib loo galo aan marka ugu horeysa la helo oo ay ka dhisanto dawladda Soomaaliya dawlad accountable oo ka talisa wadanka min cirif ilaa cirif dawlad la soo doorto
oo mandate-ka dad kale ayuun baynu hor fadhiisan karnaa caalamka waa saa horta loogu sheega iyo ciddii kale danaynaysaa arrimaha mandaqada oo dhan sababtaasaa loo leeyahayna waxa weeye haddiiba ay dhacdo cidda markaa joogta lala heshiiyo ee aan filla soomaali afar guryo filla soomaaliya wax ka badnayn aan xukumin kuwa ka dambeeya ee dhalan doonaa cidi garanti kama aha inay aqbalayaan heshiiska qoladaasi gashay marka waa gacmadaalis iyo biicul naashay nagu noqonaysaa qodob waa kaa qodobka labaad haddiiba ay dhacdo oo dowlad accountable ay ka dhalato meesha Soomaaliya oo filla Soomaal fadhiisato oo noqoto inaynu la hadalno hadalka waxaynu ka bilaabanaa wada xaajoodka qodob qura ayaa laga wada hadli karaa qodobkaasina waxa weeye sovereignty-ga Soomaaliland sidii inuu kala guran lahayn inagoo laba dala si aynu laba dalo isku mid ugu nimid 1960 soo nimid oo kale inagoo ah inay sayn u kala guran lahayn falowgeedan qaban wax kale oo laga hadlayaa ma jirto dawladaha caalamku waxay nooran doonaan ma ee shirka wada hadallada ballaariyo oo baac mushtarka iyo isdhexsocodka iyo ciyaaraha iyo waxyaabo caynkaas oo ciilka dilo barbar wada taa waxaynu kaga jawaabaynaa kuwii horeba socon waaye intaasoo qodobka hore baa la galo noocaas waxba ka socon waaye marka nimankan qodobka baanu kala hadli karnaa qodobkaas aan furfuraya kuwan kale doonaysaan qodobkaasi haddaanu laga wada hadalo meel la isla dhigin waxaan kaloo waxba waa biicul laash waxba kama soconayaan taasi waa ta labaad ta saddexaad haddii ay dowladdaasi dhalato accountable-ka ay Soomaaliya sida saxda ah u doorato kolka ugu horeysa kolka saddexaad waa inay aqbalaan oo ay qiraan in Soomaaliland xasuuq iyo burbur baahsani ka dhacay apology iyo dadnimada waa la xumeeyay iyo wadanka iyagoo quramaha meelo badan baa xasuuq ka dhacay iyo meelo dambe dhibaato ka dhacday iyo waxaas inama marayaan way cidda kale ee dhibaato ku dhacday kaladan korfeeyo inaan gaaro faashado gadafooyin dhacayo waayaha gardaajo waqtiga gunaanaday anna waxaan gudiyayo midkaan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin klibkayga hore waxa aan ka soo sheekeeyay wada hadalladii Soomaalidu iyo Somaliland taariikhdoodii iyo soo jiitay meel halkay soo marayeen kanna waxaan doonayaa inaan baritaar uga dhigo klibka hore haddii aan ku soo bilaabo markaa waxa inala gudboon klibkan waxaan doonayaa inaan gaar uga dhigo waxa imika inala gudboon saaniga ila tahay horeyntaana waxaan doonayaa in Somaliland iyo xukuumad iyo shacabba aan gaarsiiyo waxaan doonayaa marka ugu horeysa Somaliland xukuumadeedu in wada hadallada haddii la doono in mar dambe la galo oo ay meesha ka dhisanto dawlad la doonayo in wada hadallada la galo shuruudda ugu horeysa ee ugu muhiimsan aynu ku xiraynaa waa inay noqotaa in dadka lala hadlayo ama dowladda lala hadlayo Soomaaliya joogta filla Soomaaliya joogta ay noqoto dowlad accountable oo wadanka ka talisa cidhif ilaa cidhif sidaan loogu sheegaa dowladda reer galbeedka international community inagu dhexdhexaadinaya inagu dirqeeya inaynu wada hadalno sababta taan leeyahay waxa weeye yaa lama damaanad qaadi karo nimanka caynka beentooda iyo shirquuladooda u badan yihiin dowladda tan ka dambaysa
inay yoran doonto dowladdii idin aada wadahadlada la gasheen ama heshiiska la gasheen dowlad accountable ma ahayna dowlad in gaaray ay maamuleysay oo ka talisay bay ahayd marka anaga lama khusayso inay yiraahdaan ma waxba ahayn haddii la oran lahaa dowladda international community-ga markhaati idinka noqonayo oo noqon mayso tii horeba way noqon waayeen halkay martay heshiiskii hawadu way taan ognahay heshiisyadii kale ee Djibouti lagu galay ee international community goobjoog ka ahaayeen halkay maray way ogyihiin marka laynagu harowsan maayo ama laynagu beer laxawsan maayo dowladda shisheeye ama international community-ga ayaa markhaati ka noqonayso heshiiska meeshan ka ay nimankani galaan accountable weligiiba noqonaya taasi waa mid haddiiba markaa waa qodobka koowaad kaasi dowladda accountable un baynu la hadli karnaa qodobka labaad waxa weeye haddii ay dowlad accountable la rubama ay dhacdaba umalayn maayo inay muxuu ciridkaa arkayo gawsa kama soo jeedaan haddii ay dhacdaba oo ay dowladii halkaa ka dhalato hagaagsan waa inaynu hadalwadaadaleynaa kow ka dhignaa ama muhiimadda ugu weyn ka dhignaa inaynu nimankaa kala wada hadli karno oo qura sovereignty-ga Somaliland sidii aynu u kala guran lahayn dowladda halkaa ka talisa ee aynu sidii markii horeba aynu inagu laba dowladood ahaa isku nimid 1960 inagoo kala ah aynu kala joogno aynu mid walba meesheedii ku noqoto waxaan taa ahayn oo aynu ka wada hadlaynaa ma jirto dowladaha international community waxay noqon doonaan mee wada hadla waxa weeyaan idinkoo taa wada ayaa meelo kalena wada hadalada kale la barbar si barbar socda loo wadaa oo ay ka mid yihiin isdhexgalka iqtisaadku la isku daro maxay ahayd isu socodka dadka waxyaabo caynkaas oo ciilkaa dilo ayay noqon doonaan barbar wada waxaan qodobkiinana taana waanu ka diidi doonaa waxaan oran doonaa sababtaan u wadayn baa jirto kuwii hore ee aad markhaatiga ka ahaydeenba waxbay ka socon waayeen marka kuwa la sheegaysaan ee kale ee la doonay aad leedihiin isbarbar wada waxa u muftaaxeedu yahay ka qodobkaas sovereignty-ga marka kaas yimaadee meel isla dhigo kuwan kale automatically ba u imanaya kaasi waa qodobka labaad qodobka saddexaadna wuxuu noqonayaa haddii ay dowladda accountable meesha ka dhalato oo hadallada dib loo bilaabo in la qiro rasmiyan qoraal iyo meel fagaara caalami laga qiro in Somaliland xasuuq caami ka dhacay xasuuq baahsan ka dhacay burbur badani ka dhacay markhaatigeediina la wada ogyahay magaaladu 91 way burbursaneed magaalooyinka Somaliland taana waa inay qiraan waxay oran doonaan wadanku civil war baa ka dhacay uu wada burburay waa la isxasuuqay Somaliland qoli kama dhicin taa waxa jawaabteedu waxay tahay ciddii kale la burburiyay ciddii kale la xasuuqay hadday saamaxayaan iyo hadday iska dayriyaan iyagay jirtaa laakiin anagu taayadu mid la ilaawayo maaha taa marka la isla qiro waa xasuuq baa dhacay dadka waa la xumeeyay waxaasina mari maayaan kaas waa qodobka saddexaad qodobka afraadna waxa weeye in la bixiyo magdhow caam oo kaamil ah oo laga bixiyo dadkii la xasuuqay iyo hantidii la burburiyay waxa taasi dheer dadka imika aan fayoobi iyo miirqab midna aan ahayn ee magaalooyinka Somaliland oo dhan laga soo helayo oo waxa la yiraahdo post war trauma ay hayso inta guriga ku xirxiran ee silsilada ku xirxiran inta dhakhtar loo laayahay ee waxaba ay sabab u ahayd xasuuqiyo iyo dhibaatadii baasneeda waddanka soo gaaray kuwaasi iyo kuwii dhintay iyo hantidii burburtayba magdhow kaamila oo buuxa waa la bixiya ama international community waa ka bixiyo ama iyagu waa iska bixiyeen tashanaad ee ugu dambaysan kusoo gabagabeynaya waxa weeye burburkaa iyo xasuuqaa dadkii geystay reer Soomaaliya waxay u arkaan halyeeyo waa la maamuusaa waa la sharfaa qaar baa taalooyin loo sameeyaa waxaa ka mid ah Morgan
oo isagu naanays kula baxay the butcher of Hargeysa ayaa maanta xamar iyo meeshuu doono taxtaxaashaya. waxaa ka sii daran weliba waa la taliyaha amniga ee madaxweynaha maanta jooga. maamuuska intaa uu leeyahay wuxuu ku mutaystay oo abaalgud looga dhigay xasuuqii uu geystay. way dhici kartaa saasay noola tahay annaga. cali samatar oo afkiisa ka qirtay inuu isagu amray burburkii Somaliland ayaa sida loo maamusay iyo tacsidiisii iyo aaskiisa looga soo qayb galay noogna. ninka guulooda la yiraahdo iyo odayga maxamed cabdi la yiraahdo iyagoo hadcad iyagoo aan cidna ka gabanin cidna la gabanin bay xamar dhexdeeda ka yiraahdeen xasuuqii burburkii Somaliland loo geystay sax buu ahaa. nimankaasi way dhex joogaan isma qabato. markaa nimanka caynkaasi dadkii la joogaan ayaa haddana innagayna leh waan iyo sukaalay iyo waynu heshiinaynaa. intaasaan hadalkiisa soo koobaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa hagaag daawadayaal barnaamijkan intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. waxaa isku dubiriday farsameeyey islamarkaana halkan idinku soo gudbinayay anigoo Salabaan Cabdi Cali ah. Cali Sheekh ayaa inoogu marti ahaa oo inoogu warramayey. tan iyo ismaqal arag dambe waxaanu kaga tegaynaa nabadgelyo.